cabdicasiis maxamuud takar oo uu abti u ahaa. بسم الله محمود يوسف آذن oo loo yaqaan Muro wuxuu ku dhashay magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose labaatameeyadii qarnigan aan ku jiro wuxuuna noloshiisa idil uu ku qaatay magaalada Muqdisho oo uu ku barbaaray oo wuxuu ka bartay una ka shaqeeyay marka laga reebo markuu jaamacadda u tagay wadanka Talyaaniga oo dhowr sano ahayd shaqooyinkii uu soo qabtay waa fara badan yihiin laakiin waxa lagu xasuustaa waxa weeye markii ugu horeysa waa saad sheegtay aasaasiyaashii xisbiga SYL isagii Yaasiin Xaaji Cusmaani iyo Cabduqaadir Sakhaawadiin waa dadkii hawsha u kacay markii dambana hawshii ugu adkayd hawl SYL ay qabato oo ahayd in dadkii ku noolaa NFD la soo xereeyo waa ninkii loo xilsaaray oo hawshaas soo qabtay maxamuud isagu markii uu hawshaas uu ka qayb qaatay kadib wuxuu qabtay shaqooyin muhiima oo uu qabtay dawladda Soomaaliyeed waxaana laga maarmaan in la sheego in dawlad kasta oo Soomaaliya leedahay uu la soo shaqeeyay laga soo bilaabay dawladii daakhliyadda oo uu noqday wasiirkii ugu horeeyay waxbarashada Soomaaliya dawladii rayidka ahayd oo uu xil saartay inuu noqdo safiirkii muhiimka ah oo dawladii Ethiopia aan saynay xilligii Haile Selassie safiir ka noqday markii dawladii kacaanka ay timidna laftirkeedu waa ka qayb qaatay dawladdu Allahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre oo madaxweyne u ahaa dawladda kacaanka wuxuu u xil saaray hay-adii qof walba aan lagu aamini karin oo soo saari jirtay dakhliga ugu weyn wadankeena oo la oran jiray Somali Fruit marka dhinac walba Soomaaliya waa uga jiray siyaasadeeda cabdicasiis wax badan baad la noolayd abtigaabu ahaa wuxuu ahaa in saaxiib hoose ahaydeen in idin soo koriyay buu ahaa waxna waad ka qortay waxyaabaha aad isleedahay waa lagu xusuusan karaa oo si gaara aad uga qortay ama aad ka dhageysatay maxaa ka mid ahaa wuxuu aaminsanaa Soomaali weyn ma aaminsaneen Soomaali qabiil ah iyo Soomaali gobol ah taasuna ku dhamaystay cimrigeeda mideeda kale waxa la og yahay in uu ahaa nin taariikhda Soomaali meel ka galay maadaama isagoo nin dhalinyaro ah oo naftiisa u huray wadanka dadku waxa laga yaabaa qaar inaysan aqoon Maxamuud Yuusuf Aadan Muro wuxuu ahaa ninkii ogolaaday in uu u dhinto inuu halgamaagii Cabdullaahi Ciise uu tago qaramada midoobay oo uu u qaatay talaal loo haystay inuusan ka kacayn oo bil iyo 10 casho oo u jiranaayo sariir u saaraa ilaahayna wuxuu kasay in uu noqdo ninkaas talaalka qaatay oo lislaha wuxuu dhiman doonaa fartameeyadii iyo waqtiga inuu noqdo halgamaagi ugu dambeeyay SYL oo ilaahay uu wafsado 2019 isagoo nin yara oo dhalinyaro ah ayuu wuxuu ogolaaday inuu u dhinto wadanka si calankan Soomaaliya oo aan hadda haysano aan ku faanayno uu jiro taarinka weyn oo wax xasuusan kara ma jirto qabanqaabo weyn baad haatan wadaan oo dadka Soomaalida oo dhali haatan ay ka wada qayb galayaan aaska dhici doona maalinta berrita isagoo xalay ku geeriyooday Muro magaalada Nairobi waxaad ka mid tahay xubnaha guddiga qabanqaabada yaa ilaahay haatan idin kala qayb galaya sideese aasku u dhacaya waxaa nasiib wanaag ah in dadkii Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay la soo xiriireen intooda badnayd ilaa haddana waxaan helaynaa tacsiye aad u badan dadyo waxaa jira yimid iyo kuwa imaan doona ilaa iyo caawi aasku wuxuu qabanqaabadiisa waa socotaa waxaa berrito insha Allah salaada duhur lagu tukan doonaa masjidka la yiraahdo Al-Nur oo ku yaala xaafada South Sea magaaladana hadda joogna ee Nairobi waxaana lagu aasi doonaa insha Allah xabaalaha Langata qabanqaabada socota waxa jirta guddiga qaar ka mid ah waxa la soo xiriireen mas'uuliyiin dawladda Soomaaliya federaalka iyo gobolada qaarkii waxa kaloo arinta xoog ugu jira safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi waxayna arintani muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed wali uu ruux ku jiro oo wadaniyad ku jirto oo dadku aysan ka quusan wadankii ayna qiimeynayaan halgamaa kasta oo wadanku ka qayb qaatay dadkii ugu dambeeyay oo Ilaahay cimri siiyo dheer maxay 98 sano gaaray cabdicasiis maxamuud takar ayuu ahaa oo u waramayay Yaasiin Ciise Wardheere waxaana uu la wadaagayay taariikh kooban Allah u naxariistay abtigii Maxamuud Yuusuf Aadan Muro oo ka mid ahaa halgamayaashii SYL.
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii haweenkii qoysku toddobaad kasta hadahan oo kale aad ka maqashtaan v o a waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo tabinaysa caashe ibraahim aadan. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. qoysaska Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan dalal ka mid ah waqooyiga Ameerika iyo Yurub ayay dhibaato ka haysataa inay ka warqabaan dhaqdhaqaaqa wiilashooda hanaqaadka ah, taasoo waalidiin badan dhaxal siisa in ubadkooda ay ku dhacaan haliso badan oo qaarkood keeni kara in la dilo. haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan ku eegaynaa dilal dhalinyaro Soomaaliyeed loogu geystay dalka Sweden iyo sidoo kale dadaalada ay waalid degan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ubadkooda uga badbaadinayaan maandooriyaha oo ah kan halista ugu weyn u horseeda dhalinyarada. shan wiil oo Soomaali ah ayaa tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay dalka Sweden, waxaan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo hayn cidda dishay iyo waxa loo dilay. hase ahaatee tuhunka ugu badan ayaa ah in dhalinyaradan ay iyagu is-ugaarsadaan. waa kan Axmed Kaboole oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden. bulshada ay ku xiran tahay inay ka fashadaan si looga hortagi lahay aan u badbaadsan lahayn awlaadeeda aan u badbaadsan lahayn si waalidiinta loogu wacyigelin lahay inay waqti hore ka hortagaan in ilmuhu ay ku dhacaan dembiyada iyo ka ganacsiga daroogada ay maaragtay ku dhacaan. arrintaasna waxaa looga baahan yahay waalidiinta iyo dadka culimadiinka iyo dawladda inay iska kaashatay community-ga dhan oo u istaago sidii awlaadan loo badbaadi lahay, ka shaqeeyaan inay iskuuladooda iyo cashiradooda iyo aysan ku dhicinin. sababtoo cunuga hadduu iskuulkii ku dhaco mustaqbalkiisii waxuu moodaa in uusan haysanin, shaqa la-aanaa ku dhacaysa, waxaana u fududaanaysa sida caadigaa inay soo jiitaan kuwan ka shaqaysta daroogada iyo waxyaalahaas ka shaqaysta. dadka Soomaalida waxaa looga baahan yahay wiilasha deertaan dhintay waa dad Soomaaliyeed, kuwii sanadkii hore dhintay waa dad Soomaaliyeed. dadka dilaha oo kaleeto waxaa laga yaabaa inay ayaguna qolooyin kaleeto yihiin oo ay yaqaanaan. waxaa looga baahan yahay community inta qalbiyada isku furaan, runta isku sheegaan si aan u badbaadino kuwa dambe, sida u badbaadino in tala la keeno, la fashado, la isku yimaado, ilmahana si wada jir ah aan uga wada shaqayno sidii mustaqbal fiican loogu samay lahay. waxaan rajaynaynaa community-gu inay isku caqli celiyaan oo ay dhahaan dhibaatadan sii soconaysa sidaan ku joojinaa. hay-adda la yidhaahda Neighborhood House oo ah hay-ad ka shaqaysa arrimaha bulshada oo ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa qabata barnaamijyo waalidka ka caawin kara inay carruurtooda ka ilaashadaan maandooriyaha si aanay marka dambe farahooda uga bixin carruurta oo aanay ugu dhicin halisaha badan ee ku gadaaman adeegsiga maandooriyaha, kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xabsi galaan, guryaha ka cararaan amaba la dilo. Nafisa Daahir Samatar waxa ay ka mid tahay gabdhaha hay-addaasi kala shaqeeya xagga casharada la siiyo waalidka. Programka anaga wuxuu nagu soo biiray 4 sano ka hor. sababaha marka loogu baahdana waxaa nagu batay dhibaatooyinkii soo saameynaysa carruuraha yaryar, ilmaha u dhaxeeya 13 jir ilaa high schoolka inta u dhaxeysa, dugsiga sare ilaa dugsiga hoose. taasaa nagu kaliftay in loo baahdo in waalidka la wacyigeliyo si looga hortago muqaadaraadka. waxaa jira dambiye ka dhashay isticmaalka maandooriyaha oo ay ku kaceen dhalinyaro Soomaali ah, iyada oo sidoo kalena iyaga qudhooda dil lagula kacay, taas oo soo jiidatay indhaha waalidiinta, markii dambena keentay in loo baahdo in waalidka la siiyo casharo isugu jira xog iyo wacyigelin sida ay Nafisa sheegayso. dacdooyin badanaa dhacay, annaga weliba magaalada aan deganahay iyo magaalooyinka nala midka oo Soomaalida ay ku badan yahay aad bay noo saameysay muqaadaraadka, daroogada iyo qamriga, waxyaalaha loo yaqaan xashiishka saameyn badan ay nagu yeelatay. waxaa dhacdo in isbuuc walba haddaysan ahayn isbuuc walba 2 isbuuc markii la joogaba in ilmo Soomaaliyeed la dilo. waxaa nagu batay iskuuladii ilmihii isagoon dhamaysanin dugsigii sare in ciyaalkii iskuulkii ka tagaan. 13 jir markuu gaaray ilmihii oo dugsigii hoose uu sii dhamaystiranayo oo kii dhexe oo u gudbi lahaa inuu bilaabo iskuulkii inuu diido. waxaa nagu batay gabdho yaryar oon gaarin 18 jir oo ka baxay gurigii ka cararay, ilmihii oo bartay maaragtay inay ku biiraan qolyo kale oo dadka dhibaateynaya. inta badan waalidiintu ma dareemaan marka ilmahoodu uu la soo baxo dabeecado cusub oo aanay horey u lahaan jirin, waxaana dhacda in inta badan waalidku
gaar ahaanna kuwa isha ku haya carruurtooda ee wakhtiga badanna geliya inay ku dadaalaan oo keliya in ilmuhu wakhti wanaagsan soo hoydo iyo inaanay guryaha ka dhixin hase ahaatee waxaa dhacda in ilmaha iyaga oo guryahooda jooga ay haddana daroogada faraha kula jiraan sida inay iibiyaan kala gudbiyaan amaba iyaga qudhooda isticmaalaan taasoo aanay haddana waalidku dareemin hooye faadumo maxamed xasan oo la dhacsan casharada ay ka baratay hay-adda neighborhood house ee ku saabsan sida ay ku kala garan karto in ilmaheeda uu nadiif ka yahay daroogada iyo in kale ayaa tiri waxaan idhi sideeban horta ku dareemi karaaba inaa ilmahan iga sumaysan yahay in kale waxay yidhaahdeen 2 shay aa ku garan kartaa mid ilmahoo kaa cararaya oon kuu soo dhawaanaynin ma ogolo inuu kuu soo dhawaado ilmuhu ta labaad wejigiisa ma ogolo inaad isaas isu fiirisaan wejika weji ma ogolo ama wuu fooraraa ama wuu kaa warwer haddaa la hadlayso dhulkuu fiirinaya ama wuu sii jeedaa si toosa kuuma fiirin karo waxyaalaha haddaa ku aragti bay dhaheen fariisi ilmaha fariisiya ifiiridhe wejigaaga isoo sii faldheecan ila hadal oo imaqal marka wuxuu ku leeyahay hooye waa ku maqlaa aaba waa ku maqlaa idinku wada hadalkani waa maqlaaye wuuna fooraraa marka su-aasha kalaan weydiiyey waxa waaye waxaan idhaahday ma dukaamada oo dhan baa lagu gadaa maadaama wixii soodho laga dhigay maadaama wixii nacnac laga dhigay maadaama wixii cookies laga dhigay sidee macnaha aan stooradii ooga dhex garan karnaa ma maal gaaraha lagu gadaa mise waxaa lagu iibiyaa marka maadaama ay saas tahay waxay ugu yidhaahdeen dukaamada lagu gadaayo ma ahan dukaamadan caadiga raashinka caadiga lagu gado waa meelo u gaara iyaga waxyaabaha ay inta badan waalidku wada qiraan waxaa ka mid ah in ilmuhu u baahan yahay in wakhti badan la geliyo si waalidku u helo wakhti ku filan oo ay wax badan kaga ogaan karaan ilmahooda sida qaabkuu ilmuhu u fakero haddii uu saaxiib leeyahay nooc ay yihiin saaxiibadiisu waxa ay ka wada sheekaystaan ee ay inta badan isu sheegaan taasoo fursad u siin karta waalidka inuu ilmihiisa ka badbaadiyo halisaha uu ku dhici karo inta aanay xeero iyo fandhaal kala dhicin waa tan mar kale hooye faadimo maxamed oo qudheeda arrintani rumaysan xogtiisii oo dheh waddadaas waa waddo xun ha marin halis bay leedahay waa khatar kugu soo socota ogow hal marna ma ahane waa inaad wax badan ku soo celcelisaa oo adoo si degan oo meel fiican oon buuq lahayn oon ilmaha qaylo lahayn oonan maaragtay khasab ahayn si degan inaa mar walba mar usoo dhexgelisid intaad fariisitaado hooyo waddankaanaad joognaa waa sidaas hawshaasaa jirta arrimaha ha gelin si toos ah wayna dhagtiisa ugu ridaa si ayna berri u dhihin la iima sheegin ilmaha maraykanka jooga waxa dila waa waxaan loo sheegin arrin kale oo aad u walaacgelisa qaar ka mid a waalidiinta soomaalida ah ayaa ah inay ku adag tahay inay gartaan in ilmahoodu uu adeegsado daroogada maadaama daroogadii loo soo farsameeyey siyaabo ay adag tahay in waalidku ay gartaan sida inaanay qaarkeed qiiq iyo ur toona lahayn hooye faadumo arrintaasi war uma hayn ilaa ay hesho casharo lagu sharaxayo qaababka maandoorayaha waxay yidhaahdeen waxaa laga dhigay kiniin aad u yaryar zaa'id u yaryar yahay marka hal mar ilmuhu liqo way ugu filan tahay marka si qiiq iyo waxaas waalidku aynan u arag waalidku qiiqa ilaashanayaan laakiin qiiq meesha maba yaalaba kiniin ilmihii kiniina looga soo dhigay wuuba soo liqayba guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo aad iyo aad ayay u mahadsantahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo barnaamijka haweenka iyo qoyska noo soo diyaarisay nalala socodsiinaysay waxaanu kusii siqaynaa gebagabadii barnaamijkeenna dhankii heesaha aanu jalleecno codad ka baxsan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye maxamed moge liibaan iyo xaliimo khaliif magool waxa dhacay abaaraha